Assalaamu calaykum waraxmatullah. Daawadayaasha qiimaha badan oo muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ninka ugu taajirsan Nigeria iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Waxaan kusoo qaadanaynaa ninka ugu taajirsan qaaradda Afrika taariikhdiisa oo kooban. Waxaan kusoo qaadan doonaa sida uu ninkan ku noqday taajirka ama hantiilaha ugu weyn qaaradda Afrika. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Aliko Dangote. Aliko Dangote waa ninka ugu taajirsan qaaradda Afrika. Maantana waxaa doonayaa inaan wax yar ka taataabto taariikh nololeedkiisa oo kooban. Aan hore u galno. Aliko Dangote wuxuu ku dhashay gobolka Kano 10 Abriil 1957 ama 1957. Waa aasaasaha shirkadda Dangote Group. Shirkadaas oo ah shirkad ganacsi oo ku taalo qaaradda Afrika. Alika wuxuu leeyahay ama haysta dhaqaale lagu qiyaasay 8.1 bilyan oo dollar. waana qofka 88 ee ugu hodansan dunida iyo qofka ugu taajirsan qaaradda Afrika. Qoyskiisa. Alika wuxuu ka dhashay qoys muslim ah. Hooyadiis waxaa la yiraahdaa Xaajiya Maria Sanasi Dantata. Aabihiisna Maxamed Dangote. Abowgiis waxaa la yiraahdaa Sanusi Dantata. sidoo kale xaaskiisana Maria Edi Maxamed Rufaaci. caruurtiisana waa 3 gabdhood iyo hal wiil oo isaga korsaday. shirkadda Dangote Group waxaa la aasaasay sanadii 1977. Alika weligiis ayuu ahaan jiray qof daneeya ama xiiseeya ganacsiga xataa waagii uu ahaa arday dugsiga hoose. wuxuu dhahay Alika, waxaan xusuusan karaa markii aan dhigan jiray dugsiga hoose. wuxuu leeyahay waxaan iibsan lahaa kartoon macmacaanka ah oo waxaan ku bilaabi lahaa iibintiisa. waxaana sidaa u sameynayaa kaliya inaan lacag ka samaysto. aad ayaan xiiseynayay ganacsiga xitaa waqtigaas. Alika Dangote wuxuu ka soo waxbartay Sheikh Ali Kumasi. waxaa ku xigay dugsiga sare ee Capital. wuxuu ku qalin jebiyay magaalada Ku Kudu sanadka markay ahayd 1987. Alika Dangote waxaa loo aqoonsaday inuu yahay qofka ugu taajirsan Afrika sanadii 2014. haddeer wuxuu haystaa lacag lagu qiyaasay 8 bilyan oo dollar. da'diisuna waa 63 sano ama 63 sano. muuqaalkeena maanta halka ayuu noogu egyahay. intaynu kulmeen muuqaalo xiga hadduu Alla idmo waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.